rabaan inay ishu ay soo aado saa darteed buu wuxuu yidhi war iswasaca oo iskala qaybiya hal albaab ha ka wada gelin oo walba haddii ay ilu ay imanayso midkayn uun keliya ha ku dhacday idinkoo dhan bayaanay markaa idin wada galfanin hadalka uu tilmaamaya macnahaasu marka ahaa ibnu jariir wuxuu leeyahay sidaadaanu ka soo xiganay raggii horhoreeyey ee iyagu saalixiinta ahaa waana qowlka nafsadu ay ku degayso jumhuurulmufasiriin ay qabaan in mas'aladu ay sidaa iyadu tahay waxaana arrinkaa aad ka heli kartaa atabari ibn aljawzi alalusi albagawi alshawkani albaydawi kutubtaa oo dhan oo tafsiirka markaad horas aad dul istaagtid culummada dhanba waxay ku siinayaan macna sidaas oo kalea allah wuxuu qur-aanka haddana uu ku yidhi wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim lama samicuu adikr wayaquluuna inahu lamajnuun fi suurati alqalam kuwii gaalada ahaa waxayba sigayaan inay kugu legdayaan aragyaashooda ama aragyadooda inay kugu legdayaan aragyadooda inay kugu legdayaan bay sigayaan waxayna kuu raacinayaan waa majnuun waxay culummada ay ku fasireen ibn cabbaas mujaahid wuxuu yidhi layuzliquunaka biabsaarihim macnaha aayaddu ay tilmaamaysa ayaa waxa ay yahay macnahaas way ku ilaysanayaan bimacnaa il bay marka kula abbaaranayaan taa macnaha waxaa tilmaamay غayru waaxid min almufasiriin wuxuuna leeyahy alimaam alqurطubi maadaama ay in fara badan ay ka baqi jireen nebiga sala allahu calayh wasalam oo ay diidanaayeen in baaqiisa diiniga uu soo shaaco ayaa waxay isku dayeen inay cala alaqal haddii wax kasta ay sameeyeen oo wax kaga qaadi waayeen bal ilaysta isha un markaa ha raacdo macnahaasoo dhan markaa tilmaamaya axaadiida nebiga sala allahu calayh wasalam markaan usoo gudubno bukhaari waxa wariyay xadiidkii abu hurayra wuxuu ahaa nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi alcaynu xaq xadiidka waa xadiid saxa ishu waa wax jira xadiidkii ibnu maajahna wuxuu caaisha laga wariyey istaciiduu billahi min alcayn faina alcayna xaq ilahay waxaad ka magan gashaan isha in laydin ilaysto maxaa yeele ishu waa wax jira xadiidkan waa xadiid uu tasixiyey sheekh naasuddiin albani waxaa kaloo soo aroray xadiidkii saxiix muslim alcaynu xaq ishu waa wax jira low kana shayءun saabiqun ilqadara lasabaqathu alcayn waida istugsiltum fagsiluu ishu waa wax jira haddii ay jiri lahaayeen wax ka hormara ish qadarta ilan ilahi subxana wa tacala waxbuu qadaray waxbaa la jaangooyey lawxul maxfuudka wax ku qoran intaan nala abuurin baa wax kasta la qoray haddii ay jiri lahaayeen wax ka hormara qadarta ilaahay haddii ay jiri lahayn isha un bay noqon lahayd buu lehay rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo soo aroray xadiid tirmidi ee asmaa bintu cumays oo ay tiri yaa rasuul allah wiilasha jacfar il baa ku soo degdegaysa rasuul allow ma u tufid dalbaayo maxumed lagu aqrinaya markaasuu yidhi haa xadiidkaabuu marka sheegay xadiid kale wuxuu tilmaamay alimaam axmed bin xambal uu tilmaamay ina alcayna latuulacu biاlrajuli biidni اllahi xataa yascada khaaliqan fayataraddaa minhu ama xaaliqan fayataraddaa minhu ishu waa ay laazimaysaa qofka bini aadamka ah heer uu qofka markaa uu fanto buur oo dusheeda istaago oo fiideeda sare istaago kadibna meesha uu ka soo shalwado heerkaasay la gaari kartaa buu rasuulka sala allahu alayh wasalam idan axaadiidaas oo dhan iyo xadiidkii lahaa ee abu naciim laga wariyey abu naciim oo fi lxilya jaabir laga wariyey sheekh naasiruddiin albanina xasan uu ku sheegay lagu sheegay jaamica saxiix ee 4023 wuxuu ahaa alcaynu tudkhilu rajula alqabra ishu ninka bini aadamka qabrigay gelidaa bimacnaa wuu dhimanayaa waa tudkhilu ljamala alqidra ratigana dhari bay gelidaa oo bimacnaa waa maxay intuu il markay ku dhacdo oo uu rafto xaalad xun markaa gaaro ayaa ninkii lahaa wuxuu la soo degdegaya inuu markiiba gowraco kadibna markaa uu maxay dadka u kariyo rasuulka sala allah alay slam xadiidkaa buu yidhi walidalika wuxuu leeyahay almanaawi arrinkaa ratigana uu sidaa noqon kara arrinkeedu arrin markaa sahlan maaha bazaar xadiid kale jaabir laga wariyey wuxuu ahaa akharu min man yamuutu min ummatii bacda qada'i illahi wa qadari dadka ugu badan ee dhimanaya ummaddayda ka mida marka laga soo tagay qadaha ilaahay qadarta ilahay marka laga soo tago il bay u dhimanayaan buu rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiidkan sheekh naasiruddiin albani wuxuu ku tilmaamay xasan inuu yahay 1217 axaadiidaas oo dhan waxay muujinayaan inay ishu wax sugan ay tahay waxaan u soo daadegaynaa intaynan dawadeeda iyo sida loo dawayn tilmaamaya inuu arrinkanna uu jiro tilmaamaya dawadiisana in markaa laga heli karo waa xadiidkii ahaa xadiidka abu umaama waxaa dhalay nin lagu magacaabay sahl ibnu xaniif
وحيري مركا أبو أمامة إساقو كهلي أبيه وحيري أباهي سهل بن حنيف أيام مال خرار لغو مقعابا كما يرتبي يرماشو كوكو بايستي ما مال بيا لهذا ما مال كتا على المدينة المنورة ما توك توقي مدينة كم يدهبا سدح ذوائي هذا العلماء ماشا سوكوكو بايستي بيري كدبنا وحيري أباهي وحو أهانين آدي هدو عب وجيركي سجيري آدي هدو عبوها نمبا ماشا تاقنا لغو مقعابا صحابي أو لغو مقعابا عامر بن ربيعة عامر بن ربيعة إيشو للراعيا انت ومحي وسهل بن حنيف وماشا كون ميرانا وكوكو بيسانا يساسو عندها ولا الراعيا وحاد هذا مركة هذا الباك صوفة كذا مركة وحيري ولا جلد مخبأة عذراء ولي وحيري ما انت كهر ما أركين بيري قف جيركيسو سيدا نظيف وياه وعدان بدايهاي أنك الله كدقاء قبر يضو مركا أراصده أو بكارة أو قولي لغو مركا مخبييي سيدو جيركيدو نظيف وياه وكال حيطان لميد مهم بيري هذا الكلام مركو يري كدب وعليهاي أبو أمامة أباهي مركب والله قبتي بيري كدبنا حنون بولاد عاي بيري حنون كيسو بطي كدبنا رسولك الله قارسيي رسولك مركا الله شاكي وحيري هل تتهمون له من أحد قف كغشكين إيسان مياه جريئنو إليسي هذا الكلام مركو يري كدب بوحو ليهاي رسولك صلى الله عليه وسلم الله شاكي وحيري عامر بن ربيعة يا رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم إساقو عريسان بو عامر ربيعة وياري كالي بيري مركز وحيري على ما يقتل أحدكم أخاه معدثينتو يشرح الحديث فوق هذا نفضك كان ماشا كقرن مال وحي كقرن بين أحكام فربضان ونو إيمان دون على ما يقتل أحدكم أخاه متكين وحوالالكي سأودي ليا بيري محا دعي محا كوز قريي إن ننكلا مسلمي ولالكي مركا أودي مركز وحي رسولك صلى الله عليه وسلم ألا بركت محا دودي هو إذا بارك الله فيك وفي جلدك وفي جسمك كلمة ده محا دودي هو إذا كدبنا وحو أمر رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري أما يرب يري إسوسوا دقدق بيري ويسسوا صمير سادرت وحالة المامة سداد يطبن قيباد أو جيرك بني آدم ككمذا أيا نينك ضدك إلى استايا أيو دقدق يا بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا تلمامي دونا صفات سيد زهري ونوشيك دونا بإذن الله سبحانه وتعالى حديثك هدان إذين لما يستلو حيري وجيغاغا لبدا قعمود لبدا حصول أما وسحولات لبدا اللويود أما لبدا جلبود iyo wuxuu yiri faraha lugaha midigta farahooda shanta iyo lugaha bidixda farahooda shanta kadibna wuxuu yiri meesha aad macawista aad ka xiratid kadibna isaga hal lagu shugo buu yiri wuxuu leeyahay Abu Umaama xadiidka warinaya sidii baa la sameeyay markiiba uu ka booday buu yiri xadiidka kan marka waa xadiid uu wariyay al-Imam Malik fi al-Muwatta markuu ka hadlay baab al-ayn Sheikh Arnaout isagu markii Jaami' al-Usul libn al-Athir uu takhriijina wuxuu ku tilmaamay xasan inuu yahay شيخ ناصر الدين الألباني حديث وحو كنت لهم صحيح لبدا حالات أما لبدا المحدثين هبل حسن هير هذا هبل صحيح هير هذا الحديث هو حديث صحيح أمر هدو سقنا واسدا سهل بن حنيف وحو أهدتك بدر جوجي وهدتك وحو رقع الدياشي لسقنا رسولك صلى الله عليه وسلم عليه تحد أيد علي خندق بو جوجي مشاهيد فربضان بو كقيب قاتي علي بن أبي طالب بهدا كروحي ربصراء هذا مضح يقاقه كدي مركي أيد علي قوبتي رتيقه كدبنا صفين بو هدنا جوجي أنصارتي وكم إدهادتك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إساق أي ولا عليه كوفو كود انت صدني سدح دي مركا أهيد سيدا إصابة ابن حجر مركا أي تلماميسو أما كتابك أو تلمامي عمر ربيع إساق نوحو عددك أهل بدر ددك سابقين تأولين تو كجري ددك حبشو هجروا كجري بدر بو حاضري عثمان بن عفان باوحو ديبت المدينة المنورة مركو حجك وآدي وحونا دنتي ما وحو دنتي صدني لبادي هجري ما صدني تضبادي بو دنتي انت ومركا ولا يري meesha waxaan kagala soo baxaynaa gunaanad waxa lagu magacaabo ishu inay sugan tahay waxaan kala tilmaamaynaa shuraaxda muhaddisiinta waxay leeyihiin shuruuxda dadka sharxay waxay leeyihiin waxaan leenahay sabab bay noqon kartaa laakiin markay fulaysa waxay ku fulaysaa jaangoyn rabbi qadar Allah iyo qadar rabbi ay ku fulaysaa bi idin Allah subhanahu wa ta'ala culimadu marka waxay isweydiiyaan farqi miyaa u dhaxeeya xaasidka iyo ninka caayinka dadka ilaysanaya إلا لبدا كلمة ولا كلمة استحقلي كره خاصة ضد كأن عجائم مارك عجمتها أو لقطوا إن فربنا يوكل بحسنين أو حلقة يابا إن يسوي كين درمته أو أين كلا ساري كرين علماء مركو حير هذين حاسد كأيام معنيه سكب اللارين يا هاي